laba qofood baa intay soo baxdo ayay waxay qalqal gelinaysaa meel ay ku nool yihiin 5 milyan iyo in ka badan oo shacab ah magaalo xasilan dib u soo laabatay heshay xorriyadeedii joojisay dhiigii daadinaya waa wax laga naxo waxa ay ku dhaqaaqeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore dawladda federaalka Xasan Cali Khayre waxay ku dhaceen runtii waxa waa dambi ay ka galeen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho wax doow ma ahan xalna ma ahan in qori wax lagu raadiyo magaaladaas oo la daala dhacaysa amni darro muddo 5 sano ah ku dhawaad hadda heshay amnigeedii iyo runtii heshay dhiig joojin in lagu soo celiyaa nabarro runtii ay ka soo bogsatay wax dhacay soo baan xasuusanaa wixii isbaara iyo jagboontiyo dariiqada yaalla aan xasuusanaa wax aqli iyo runtii ka duwan habkii ay ku dhaqmeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre waa inay la yimaadaan laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay ugu digayaan inay isla mar dambe dhaqaaqyada noocaas oo kala ah iyo awood xukun ku raadinta runtii inay joojiyaan wixii dhacay wixii barakacay waa wax ka yar 2 maalmood wixii qaxay wixii runtii hamiga ka lahaa ee runtii ku fikirayay inay qurbaha ka soo laabtaan ay dalkooda ku soo laabtaan ama ay maalgashtaan maxaa caaw ay ku fikirayaan haddii overnight waxaasoo kale ka dhici karaan magaalada Muqdisho runtii waxay u muuqataa in dalal shisheeye runtii mashruuc laga soo abaabulo inuu yahay cid walbana waa garan kartaa laakiin waxa isku dayga noocan oo kale ah maanta dawlad haysata 120,000 oo ciidan oo runtii waxa awood u leh maanta inay gibigeeba waxa idin dul marto ayaad maanta waxaad aragteen sameeyeen oo shacabka dhexdooda aad gabaad ka soo dhigateen waad aragteen holodaag iyo ceel ibraahimiya siigaale runtii waxa shacabka populationka ku nool waa garan kartaan leeda iyo ganacsiga iyo howlaha runtii waxa maalinta Khamiista iyo Jimcada ah ee milyan dhalinyaro ah u soo dalxiistagi jirtay iyagoo waxa ummadoodii ku faraxsan dalkoodii ku faraxsan amniga ay heleen in runtii la qalqal geliyaa waa wax laga naxo laakiin su'aasha waxay tahay awaamirta ay ugu golayeen maxay tahay dad badan isweydiinaa oo ilaa hadda maskaxdooda waxa ay geli laadahay waxay tahay waa maxay ujeedada tan xukun raadis ka badan in runtii magaalada la kala xirtaa isbaara la dhigtaa madaxtooyadii iyo runtii waxa ereyadeeda ayaan haysanaa la yiraahdaa wax laga naxo waxaan runtii waxa inay mar dambe dhacaan waxa runtii in laga fikiray u baahan tahay noocan oo kale hadayba ka dhici karaan waxay shalay dhacay wixii labada maalmood la soo dhaafa dhacay hadayba dhici karaan runtii waxa inta ay doonayeen inay waxa amniga qalqal geliyaan oo caalamkii iyo dalxiisidii iyo tourismkii hadda waxa magaalada u furantay dhaqaalaheedii inay waxa cuuriyaamiyaan this is waxa sabotage oo runtii waxa competition iyo tartanno meel kale laga soo abaabulo waay ee magaalada horumarkeeda lagu weeqaayo inaysan xukun ku qabsan karin dhowr askar iyo runtii waxa dhowr maleeshiyada qof walba waa aragtaa laakiin waxa in la qalqal geliyo ee caalamka looga digaa magaalada Muqdisho wali inaysan nabad ahayn marka waa wax laga xumaado wax runtii waxa idinku ah waliba dadka loo tiriyo deegaanka inaad calaamadaha noocaas ku dhaqaaqdaan runtii wax laga naxo waxa guul ah laakiin in hadda la soo afjaray khilaafkoodii waxa la xaliyay guriyihii ka soo laabteen lagu celiyay xalana madaha ka gaarto dadaalada dadkii sameeyay ee runtii waxa odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin fara badan oo runtii waxa arrimahaas ku dadaalay waa ugu mahad celinayna shacabka Soomaaliyeed waxa maanta inay jimca nabad ah kuwa baristaan oo wax runtii la soo dhaweeyo